السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلامي دمان ولا لا ميرو البات joogtaan waxaan maanta halkan idinkaga soo gudbin doonaa 10 dilaa oo kamid ah dilaayaasha ugu caansan oo abid soo mara taariikhda waxay ku jiraan liiska dilaayaasha ugu xun ugu qalbiga adag ugu yaabka badan ee soo mara dunida gacan ku dhigliyaashani waxay ku kaceen falal bahalnimo kii ugu xumaa faraxumayna dhihin xitaa waxay googoon jireen meydadka jirkooda taariikhda waxaa u galay liisas badan oo aad u naxdin badan oo ay geysteen dadkani naxdintooda hooseyso oo waliba garan waayo ka gudbay xadkii xumaanta oo xitaa googoon jiray xubnaha jirka meydadka si ay ugu xifdiyaan xasuus ahaan acuudu billah walla dunida waa la soo maray dhammaantoodna waxay ka simnaayeen hal sifo taasoo ah inay ogaayeen waxa ay sameynayaan oo haddana aan muujin jirin wax qoomamo ah ama shalayto oo ay ka xun yihiin falalka ay geysanayaan inay ka xumaadaan iska badaaye wayba ku raaxaysan jireen inay dhibaateeyaan dadka siday ahaataba ku soo dhawow muuqaalkeena maanta Okay, dilaaga koowaad waxaa la dhihi jiray Dr. Hart Shipman waxa uu ahaa nin ka soo jeeda Ingiriiska wuxuuna ahaa dilaa aad u dhib badan oo aan wax nidaam lahayn waxa loo bixiyay ama ku caan ahaa magaca Dr. Death dhakhtarkii dhimashada waxa uuna dilay in ka badan 200 qofood saas ay tahay wuxuu ahaa nin guursaday oo xaas iyo caruurba leh faamiligiisana waxay ka koobnaayeen 5 qofood qofna ma aaminsaneen in ninkan faamiliga leh oo noloshan caadiga isaga nool inuu sameyn karo ficladan foosho xun isagoona waliba dhakhtar ahaa weligiisa ma uusan samaysanin wax saaxiib ah yacni lamaba arkin wax asxaab ah oo isaga leeyahay sababtoo ah ma uusan jeclayn inuu la socdo dadka oo kalsooniba kuma qabin dadka aadna wuu u kibir badnaa qofkana dee mar hadduu dabeecadna lahayn oo isla weyn yahay sidoo kalena aan kalsooni dadka ku qabaynin way adag tahay inuu saaxiib lahaado taariikhda markay ahayd 1972 waxa uu ka shaqo bilaabay isbitaal goob caafimaad waxa uuna dilay ku dhawaad 71 qofood oo kamid ah bukaanadiisa ugaartiisa ama dadka inta badan uu dilayo waxay ahaayeen dumarka daada ah yani dumarka waaweyn saas ay tahayna way jireen rag uu hore u laayay 8 sano kadib 1980 waxa uu noqday dhakhtar guud tirada dadka uu dilayayna way sii bateen oo waxay gaareen 215 bukaan isagoo JB ka shaqeynayay sanadii 1993 waxa uu xaruntiisa ka hirgeliyay 21 oo Market Street ah isagoona weli sii waday dilalka dadka balse sanadka markuu ahaa 1998 waxa uu geystay dilkiisii ugu dambeeyay waxayna ahayd habeenay lagu magacaabo Mrs. Grande oo sidii ku noqotay dilkii ugu dambeeyay uu geysto amaba shakhsigii ugu dambeeyay uu dilo haddaba siday ku noqotay ma isaga daalay oo iska go'aansaday inuu joojiyo dilalka maya ha ku sheegin islaanta uu dilay gabadheeda ayaa ku soo oogtay dacwad gabadhaas oo lagu magacaabayay Kathleen ayaa badiiday in la asturo meedka hooyadeeda waxayna dacwad u gudbisay booliiska waayo hore ayay ugu shakisnayd dhakhtarkan sababtoo ah waxay ka shaqeyn jirtay meel ka soo horjeeda isbitaalka waliba waxay tiri hooyaday kaliya ma uusan dilin ee dad badan ayaa gacantiisa ku maqan adiga waxay ahaataba meedkii baaritaan ayaa lagu sameeyay baaritaankaas oo lagu ogaaday in lagu duray Hyronis yani wuxuu ku duray cirbad suna oo aad u khatar badan isla markiina waa la xiray dambiilihii waxaana lagu xukumay xabsi daa'in ugu dambeynna 13 January ee 2004 dhakhtarkii waxa uu isku dilay qolkiisa xabsiga oo isku daldalay isagoo marna afka kala furin oo qiranin xitaa hal mid oo kamid ah dambiyadiisa ilaa iyo haddana lama oga sababta uu dadka u layn jiray kheer laawahaas markii aan halkan kaga gudubno shakhsiga labaad ama dilaaga labaad waa Dr. H.H. Holmes iyo qasrigiisii dilka magaciisa oo dhammaystiran waa Henry Howard Holmes waxa uu markiisii hore ka shaqo bilaabay shirkad caymis oo been abuur ah taariikhdu markay ahayd 1886 Holmes wuxuu u guuray magaalada Chicago ee waddanka Mareykanka wuxuuna halkaas ku bilaabay shaqadiisa dhakhtarnimada wuxuuna la baxay magaca H.H. Holmes oo uu magaciisii ka soo gaabiyay wuxuuna ka shaqo bilaabay pharmacy inta uu ku guda jiray shaqadiisii farmashiistaha ayaa wuxuu bilaabay inuu dadka u laayo lacagtooda wuxuu dhisay hotel ka kooban 3 dabaq ama 3 biyaano wuxuuna ku tilmaamay qasriga dilka dhismahaasi wuxuu lahaa qol lagu jirdilo dadka qolkaas oo ay ka buuxeen ama si buuxda loogu qalabeeyay gaas koronto
iyo xargo aad u fara badan wuxuuna ahaa qol qofkii soo gala aan dib ugu soo bixi karin qayb hoose oo qolka lahaana waxay u ahayd qol qaliin oo waxa uu ku diyaariyey dhammaan wixiiba agab qaliin ahaa isagana inta badan dadka uu dhibaateynayo waxay ahaayeen dumar waxa uu soo jiidan jiray dumarka da'da yar oo waxa uu ku soo xareyn jiray dhismihiisa dilka halkaas oo uu ku caburin jiray kuna furi jiray gaas sun ah ilaa ay ka dhintaan markay dhintaan kadibna wuu googoon jiray uu gubi jiray hilibkooda mararka qaarna wuu kala iibin jiray maqaarkooda iyo lafahooda wuxuuna ka iibin jiray jaamacadaha iyo dhammaan goobaha caafimaadka lagu barto ugu dambeynna 17 November 1894 qaar ka mid ah shaqaalihiisa ama howlgalayaashiisa ayaa wargeliyey booliiska arrimihiisa dhammaan iyo xasuuqa uu halkaasi ku hayo waayo waxa uu siin waayey lacagihii ay ku heshiiyeen kadibna booliiska ayay u bandhigeen arrimihiisa waana la soo xiray wuxuuba booliisku u sheegay hadal yaab leh waxa ay la dhashay oo ila jiro kulaha shaydaan isagaana sabab u ah inaan gacan ku dhiig la noqdo iguna dhiirigelin jiray dilalka aan geysanayo isagaana markii hore iga soo celiyey oo iga reebay abwaanka aan ahaa macnaha abwaan heesaha qora ayaan ahaa shaydaankaas iga soo celiyey isagaan walaalkay ahaa iguna dhiirigelin jiray inaan dilalka geysto waxaas markii aan ka dhigaysanayo baaritaanada la sameeyey waxaa cadeymahooda la soo helay 4 dil isagana waxa uu qirtay inuu geystay ilaa 27 dil balse waxa la hubaa oo la rumaysan yahay inuu dilay in ka badan 200 oo qofood 2 sano ayuu xirnaa kadib waxaa lagu xukumay dil sanadka markuu ahaa 1986 ayaa la daldalay oo lagu fuliyay xukunkii ay maxkamaddu ku xukuntay shakhsiga saddexaad ama dilaaga saddexaad waa Jack the Ripper taariikhda markay ahayd 1888 dilaa aan la garanaynin ayaa soo weeraray mid ka mid ah deegaanada ku yaala magaalada London dilaagaas oo isagana ugaartiisa inta ugu badan ahayd dumarka jirkooda ka ganacsada baarka inta ugu tago oo la sheekaysto oo la saaxiibo kadibna si naxariis daro ah u dili jiray markuu dilo kadib ayaa inta uu jarjaro wadooyinka soo dhigi jiray markaas ayaa loo bixiyay ama ku caan noqday magaca Jack the Ripper maadaama uu wadooyinka ku tuuri jiray meedadka go'an jahwareer ayaa ka dhashay dhammaan deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo West End warbaahinta hadhihin shacabka hadhihin jahwareer ayaa la galay kadib markay meedadku go'an oo wadooyinka laga helayo ay gaareen ilaa 5 dil oo isdaba joog ah booliska waxay galeen baaritaan xoogan waxay ku wareegsanayeen dhammaan magaalada iyagoona si qarsoodi ah iyo si muuqataba u raadinayay dilaagan aan la ogeyn oo sida arxan darada dadka u leynaya kaaga sii daran isagoo sidii baadigoobkiisa loogu jiro ayaaba waxa uu booliiska u soo diray warqad jees ah oo uu ugu sharaxayo qaabkii oo u afduubtay una dilay 5 qofood oo hilibkooda wadooyinka laga helay warqadaasi markay booliisku soo gaartay kadib bishii September ee isla sanadkaasi wuxuu dilay shakhsi kale wuxuuna ahaa dilkii ugu dambeeyay oo uu geystay si lama filaan ahna loo waayay dilkaasi kadib Jack wuxuu sidaasi ku dilay qiyaastii 100 qofood waliba muddo 6 bilood gudahood ilaa iyo haatan la joogo qofna ma oga cidda dhabta ah uu ahaa dilaagaasi saas ay tahayna waxaa laga yaabaa bay dhaheen dadkii baaritaanada waday inuu ahaa hilible ama dhakhtar qaliin marka loo eegay qaabka uu wax u jarjar jiray dilaaga afraad wuxuu ahaa Andar oo ku magac dheeraa Rostov Ripper waxa uu ahaa isagana dilaa looga qayliyay dalka Ruushka taariikhda markay ahayd 1978 waxa uu toogasho ka bilaabay magaalada Rostov ee dalka Ruushka isagoona ugaartiisa ugu badan ahayd dumarka iyo caruurta da'da yar Andar wuxuu afduuban jiray dumarka iyo caruurta kadibna si fool xun oo qaab dara ayuu u dili jiray kadibna qoorta ayuu ka goyn jiray markaas ayaa loo bixiyay magaca Rostov Ripper hiliblaha Rostov sanadka markuu ahaa 1984 waa la soo qabtay waxaana lagu arkay isagoo gabar yar kufsanaya booliiskuna way soo qabteen oo way xireen inta uu xabsiga ku jiray waxa uu qirtay inuu dil iyo kufsi u geystay 56 qofood oo isugu jira dumar iyo caruur sidoo kalena wuxuu booliiska u sheegay inuu mindi ku weerari jiray dumarka markii dambana ay balwadiisi noqotay uu joojin waayay dhagihiisana ay ku raaxaysan jireen cawaadka iyo oohinta dumarka iyo caruurta uu joojin waayay dilalka acuudu billah kiisaska dilalka uu geystay waxaa cadeymahoodii la helay 53 waxaana lagu xukumay dil toogasho ah sanadka markuu ahaa 1994 waana lagu fuliyay oo waa la toogtay dilaaga shanaad waxaa lagu magacaabaa Awdar Banday oo loo yaqaanay Ted Banday
isagoo yar ayay hooyadiisa iyo aabihiisa kala tageen. waxaa soo barbaarisay ayeeyadiisa oo hooyadiisa dhashay, sidoo kalena hooyadiisii wuu la noolaa.